بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا إخواني، ألكم waxaan maanta uga soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed dulahaan meel kasta joogaan, khaas ahaan gudaha wadanka Soomaaliya, Soomaaliland hadday noqoto iyo qaybaha kale ee koonfurta Soomaaliya. waxaan soo jeedinayaa inuu xanuunkan maanta Ilaahay caalamka ku salliday oo dunuubta caalamka ku yimiday sidii nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wassalaam, waliba khaas ahaan wadamada uu ka bilaabmay cudurkaasi oo aw maarataanay wadan kashiinaha uu yahay oo lagu dhibay dadka muslimiinta ee igoor la yiraahdo oo boqolaal malyan ah, in gebigoodiiba la damcay in laga tirtiro islaamka oo dhib badan ka taagneyd. wadanka Iiraan oo isna dadka sunniga ah aad ula dagaalama, wadanka Hindiya oo isna Kashmir, wadanka qaybaha iyo gobolada islaamka oo dhan cadaadis iyo gumaysi aad ku haya. dadkaas horta ku horeeyay, haddana wuxuu u gudbay wadamada Yurub iyo Mareykanka iyo Canada iyo dhulkaas u gudbay. innaga Soomaali ahaan wali waxa loo xalahay ma jirto. qofka xamar lagu sheegay leeyahay qof baa lagu arkay in qofkaasina waa tii la beeniyay. maartaan aan ka dhageysanay meelo badan inaan qofka wax Soomaali lagu arkay in wali jirin. dad say boorka lagu karantiinay way iska jiri kartaa oo maartaan ayaan la hubsanayo. waxaan samaanta anu khaasan ka yar hadlayaa xagga kolkii xanuunada la maqlay siyaabaha loo dhaqmay, khaas ahaan Somaliland oo inagu joogno waxaan ka hadlayaa waxa markiiba lagu booday kaliya in iskuulada la fasaxo iyo dugsiyada Quraanka ah iyo jaamacadihii iyo masaajidda oo leeyahay lagu weysaysanin waxyaabo la yaab leh. runtii horta kolka maarataanay inaga qaacida inoo taala nabigeena bari calayhi salaatu wassalaam oo ah haddii wadan cudur ka dhaco faafay hadduu ka dhaco sadaqoonka kale wixii lamid ah kan hadda la sheegayo waxa weeyaan in cidii joogtay ayna ka bixin oo joogto, cidii ka baxsan ka maqan ayna soo imanin meesha ayna tagin. mar haddaba hadday saa tahay bimaana cidii leeyahay ka bixin meesha xanuun ka dhacay dhexdooda wixii maarataanay ay sida isku daweynayaan iyo sidii maarataanay xanuunada isku la tacaalayaan uun baa jirtee waxa qabta iyo waxa baabi'ay waxa ka baxa midna lama yiraahdo. xagga dadkan leeyahay taginana waa sayna maarata xanuunka halka uga soo qaadin ama maarata marka waa karantiinimo nooca ugu wanaagsan ee nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam. haddaba misalan anigu waxaan dareemayaa Somaliland oo kale hadday doonayso misalan inay xanuunkani misalan ka hortagiisa iyo waxyaabaha ficilhaan ugu wanaagsan laga hortagayo, anay number 1 waxay ilaahan lahayd wixii dibadda naga imanaya, hadday tahay airborada, hadday tahay meelaha kale ee wadanka laga soo galo Stanley iyo Caddo kale iyo Wajaale iyo waxa soo kale dhanka si cajaa'ib badan in qaadka sidiisa u imanayo, qaadkii inuu sidiisa u imanayo kaasoo boqolaal gacmood soo maraya. dad aan nadaafada maarta shaqo ku leeyahay aad moodo waligood inay meedinin ay soo gurayaan ay soo qaadayaan maartaanay dad buka inay soo keenayaan wixii oo dhan oo caadkii la socda inuu maartaanay muxuu ahaa xaqiiqdii inuu maxaydaanay qaadkaasi aan waxba laga hadal wali. maxay tahay sababtu? waxa weeye cidda qaadka cuntaay mas'uuliyiinta ugu horeysa waxa weeyaan hadday mas'uuliyiintu cunayaan oo khaas ahaan nimanka waaweyn ee wadanka ka taliya intooda badani majlisyo lagu qaylo leeyihiin oo kuwa qaadka keenay majlisyo waaweyn lagu qaylo leeyihiin oo sheekada iyo qiiqa iyo sigaarka la afuufayo oo marka halka waxa yaana masaajidka iyo halka markay mahabboon la joojo tahabbooni marka wala iska garanaya in la joojo. waxa lamida
meelaha yara jiingadaha ee wadanka ku faafay ee 10 nin inta lagu xiro ee ciriiriga ah ee gabadhuna dibadda u fadhiistay dhuusanuuga reerkiisa u bixiyeen meelaha soo miran baa ayaa ka soo cudurkan ka dhalan karaa wuxuu ka dhalan karaa baawurta yar ee maartaan ciriiriga loo fuulayo ee inta dadka ciriir loo fuushiyo albaabada loo xirayo ee naqaska halka maartay ay kala qaadanayaan maartay bahlan yara bajaajta la tagaasida waxa soo dhan suuqii bacadlayaashi wixii oo dhan waxa soo dhan furan yihiin oo ay dadkiisa isku ciriiriyaan oo isu maartay isku buuqayaan waxa loo yiri masaajidyan lagu weysaysanin waa aniga qosol bay la tahay wax la yaab leh wax lagu qoslo weey masaajidyan lagu weysaysanin weysaysigu dadku waxay isku jiraan masaafaad bay isku jiraan maxay daanay mid kale iyaga oo masaafaadka isku jira ayay haddana meedayaan faroodi meedayaan oo wajigoodi meedayaan oo isnadiifinayaan ninka masaajidda la yiri yeen lagu weysaysanin maxay wadaadadu uga jeedaan cidiisa amarka wadaadada soo siisay maxay uga jeeday meena ogeyn kolka haddana aqalada lagu soo weysaysto inaa saf la wada galayo masaajidda oo salaada saf la galayo oo la isku dhinaca la isku wada qabanayo meena ogeyn taasi iyo weysayska mid ka daran horta wixii aqliga gala ayaa dadka loogu hadlaa waxaan leeyahay dawladda xukuumadda wadanka joogta iyo dadka culimada ah iyo dadka maxay daanay maartay waxgaradka aba war wadanka wixii khatar ku keenaya ka fikira laakiin yaa lagu boodin waxaan shaqo ku lahayn imka iskuuladii baa la yiri iskuulada saacada la yara dhigtaa saacadaha fasal waaweyn oo leedla la fadhiya macallimiin baa masaariif ka hesha intii oo dhan baa maartay hadda la yiri bildan tol halan macallimiinta marka 2 bilood ugu yaraan inay maartay bila masaariif hadaan weeyaan boqolaal macallin taan lagama fiirsan bal maxay marka su'aashan Soomaaliland u jeedin khaasahan ilaan xamar weba joojisay qaadkii inkastoo xoog ku keentay maartay Kenya Soomaaliya dhul badan ay ku keentay haddana maxay Soomaaliland qaadka uga hadli weyday oo u joojin weyday waa su'aal weyn oo anigu soo jeedinayo cid kasta oo arintan ka fikiraysa waana maartay waan xujo aan dul dhigayo inaan la rabin wixii ay nimankaas maartay ana xoolaha dadka iyo cashuuraha ku qayilaay wixii ay maartay xaaraanta ay ku cunayeen iyo xaaraanta qaadka ay cunayeen iyo meelaha laga keenayeen bahalka maartay yani cuduradu ka dhalanayaan aan mid laga hadal marka waxa weeyaan bari baa waxa la yiri AIDS laga hadlo markaas aan waxaan yiri korkii la isku yidhi meeshii AIDS-ku dawlad buu leeyahay waxaan uga jeeday yaana maartay khamriga iyo waxa soo dhan ka yimaada waxaana saraakiisha dawladaha ayaa sameeyay dadka masaakiinta ma sameeyaan baan ku marka waxa weeyaan waxa aniga meesha iga muuqata wixii xanuunkan khatarta aan ugu jirnay inuu dawlad yeeshay oo la hadlaynin kii cunayay iyo kii keenayayba taasi dib ha u fiirsata Soomaaliland iyo cidii maartay la halmaashay aan ka fikirin waxyaabaha aan sheegay oo dhan